sanad baa dhammaaday sanad cusub ayaa inoo bilowday maxaynu kii hore ka barannay maxaan geysanay xisaabtaadu say noqonaysa haddaad ganacsato tahay sanadku markuu dhammaado xisaab xir baad samaysaa waxaana ogaataa wixii sanadkan faa'iiday iyo wixii khasaartay hadday kuu soo baxdo inaad sanadkan khasaartay waxaad go'aansanaysaa meelihii khasaaradu ay kaaga timid inaad hadda kadib ka feejignaatid oo meelo kale uga wareegsatid laakiin aakhiradeeni acmaashii aan samaynaynay tii wanaagsanayd iyo tii macaasida iyo dembiga ahayd xisaab xirkeedii goormeen la arkaya haddaadan hadda isxisaabin adugu oo aadan ku xisaabtamin wixii kaa dhacay iyo wixii aad samaysay iyo wixii aad ku gaboogsashay oo sanadka sataa iskaga furan yahay waxa aad xisaabisaa ay tahay adduunyada iyo shilimaadka maxaa khasaaray maxaa faa'iiday cimrigaagii dhammaa iyo aakhiradaadii dhammaa iyo diinkaagii aadan isweydiin maxaad khasaartay maxaa faa'iiday waxaa waagu kugu baryayaa adoo lagugu dallacay xisaab adoo aan isxisaabin baa lagu xisaabinaya markaas xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu naftiina xisaabiya inta aan la idin xisaabin ka hor wazinuu acmaalakum qabla an tuuzanuu acmaashayna iska miisaama intaan la idin miisaamin ka hor xilli waxaa imaanaya wax yar iyo wax weyn faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah dhuuracasa waxa la eg aan la dhaafahayn oo xisaabteedu ay kugu imaanayso ayaa soo socda oo imaanaya qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa geystay xasanaad fara badan oo didaalay oo sanadkii dhammaaday toosnaa ilaahay ha ku mahdiyo hana weydiisto toosnaashahaas ilaahay inuu ku sugo sanadka cusubna ilaahay ku guuleeyo inuu cibaadadiisa uu sii badsado maxaa yeelay aakhiru u sii dhowaanaya qofkuna waa isbedeli karaa bayna cashiyati wa duxaaha nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam quluubta bani aadamka allah haysta yusarifuhaa kayfa yashaa suu doona alla u gadgadinahaya nebigu wuxuu ku ducaysan jiray allahuma musarifa alquluubi sarif quluubana calaa طaacatik allaha quluubta gadgadiyow ilaahu quluubteena daacadaada ku sug yaa muqalliba alquluubi habit qalbii calaa diinik allaha quluubta gadgadiyow qalbigayga ilaahu diinkaaga ku sug maxaa yeelay fitanka iyo fasaadka iyo dhibaatooyinka jira middaani haddaysan ku saamayn midda dambaa ku saamaynaysa middaan haddaa ka badbaadin midda dambaa laga yaaba inaadan ka badbaadin xaalado waxaa lagu jiraa khatar ah oo aad iyo aad u culus waqtiga iyo zamanka qiimaha uu leeyahay cumriga insaanku waa wax kooban oo tirsan acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70 nebigu wuxuu yidhi ummadayda cimrigeedu waa 60 ilaa 70 waxaana yar cidda gudbayso dhaafaysaaba yarba qofkii hadda 70 dhaafaana xoog iyo caafimaad iyo talo badan ma hayo waa guri joog cimrigiiba intaas ayuu iska noqday khayru khalqillaahi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam 63 sano ilaahay ku oofsado waxaa lagu dhinac xabaalay abu bakar khaliifatu lmuslimiin 63 sano ku dhintay waxaa dhinaca kale laga dhigay amiiru lmu'miniin cumar ibnu lkhataab 63 sano asaguna uu ku dhintay ummadda yaa ugu khayr badan nabiga calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi ah marka laga soo tago ummadda nebiga waxaa ugu khayr badan abu bakar waxaa ku xiga cumar saddexdoodii halkaasay ku xabaalan yihiin 63 sano acmaarta iyo cimrigu saas ugu kooban yahay haddii ilaahay ku waafajiyo cimrigaas
inaad ka faa'iidaysatidna nimco weyn weeye wuxuu nabigu yiri nicmataan maqbuulun fiihima kathiirun min annaas laba nimco dadka in badani waa ka dhacsanta waana ku dagan yihiin as-sihhatu wal faraaq caafimaad iyo firaaqa ilaahay inuu ku siiyo imisa caafimaad haysataa laakiin hal saac oo kali ah oo waqtigooda kamida u quuri waayay inay ilaahay diinkiisa bartaan inay masjidka ku nagaadaan inay xalaal iyo xaraam kala ogaadaan inay dhageystaan qaala Allah qaala rasuulullah imisa firaaqa iska haysto ilaahay uu siiyay iskugu daray caafimaad iyo firaaqo cimrigoodina ku baabi'inaya waxaan waxba ka soo galahayn adduun iyo aakhira intaba ilaahay quraanka wuxuu inoogu sheegay laba mowqif oo qofka waqtigiisa dayacay uu qoomameynayo oo shalaayayo waqtiga koobaadi waa marka geeridu soo xaadirto حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون geeridii markay ku timid ayuu wuxuu leeyahay rabbi yow iceli la'alli a'malu salihan fima taraktu wixii aan dayacay aan amal salih la imaado aan dib isku soo habeeyo aan noloshayda wax ka bedelo ilaahu iceli kalla innaha kalimatun huwa qailuha ma jirtaa leeyahay waa kelimada aska tiri naftana waa laga qaadaya asagoo shalaynaya oo qoomaynaya oo jeclaan laha hal saacadna Allah ka dhiga adduunyada in loo celiyo wuxuu tala iyo fara ku hayaan la arag ayaa laga jiidaya oo laga qaadaya xilligaas waa qoomaynaya mowqifka labaad ee ilaahay uu sheegay oo insaanku uu tamaninayo inuu dib u laabto waa markii jannada iyo naarta loo qaybsamo oo ahlu janna jannadooda ay galaan ahlu naar naarta ay galaan naf kastana wixii ay kasbatay loo oofiyo walaw tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun wa mujriminti dambilayalka aha ayaa waxay leeyihiin rabbi ilaahu aragnay wixii aad noo sheegtay oo waan maqalnay wax kasta waan yeelnay فرجعنا نعمل صالحا دب نوع علي عمل صالحا عن صوت سمينه وحكي سواقرنا موقف كاسنا ويكو إمام دونتا قف كان إلهي وسن كبد بادي سبحانه وتعالى وانا حالات علص وخطرة لبدا اس موقف ولا موقف او لغا سو لابانيو او دب لو سو لابانيا ما اهن لبا موقف او لغا سواقسنيا ما اهن maantay baa chance iyo fursad aad haysataa chance ku maantu ku agyaala waxa ilaahay ku raali gelin lahayd oo ilaahay subhanahu wa ta'ala liqaagiisa la kulankiisa aad u diyaarsan lahayd wayna maanta fursad ka faa'iideystaa faman kana yarju liqaa rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada qofkii la kulanka ilaahay rajaynaya cabsi ay ku jirto ilaahay maxaad kula kulmaysaa عمل صالح أو وناكسنها عمل فلا إلهي نبينا وحبل لو وداجين ولا موقف وخطر أو عظيم وي ولا ليال ساعة لها إيا الزمن كإيا أسبوعية إيا بلها إيا السنوات وساس إنه شريا حلق النبي عليه الصلاة والسلام لصوص علينا بعثت والساعة أنا والساعة كهاتين أي النبي عليه الصلاة والسلام وحال لإسوس صاري ساعدي قيامها هي أنيقو أو سدا اسكوة الله صرد محي كله الرئي وحن معنى لهاي حلق النبي الله صلى الله عليه وسلم أي علامتها وحا كمدها قرب قيام الساعة ساعدي قيامه إلى السود واتي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ذاتك حسابتي بأسود واتي غفلة يدوهنان أيين كالسجين نسأل الله السلامة والعافية qofku waa inuu marka naftiisa haleela hada toobad keen iyo dambiga iyo macaasida uu ka fuqo waa inuu ka gaarsiiyaa xaalad adag weey watuubu ila allahi jamii'an ayyuha almu'minuun la'allakum tuflihun ilaahi uu noqdo dhamaantiin waa liibaanaysan si aad u liibaantaan ilaahi uu noqdo subhanahu wa ta'ala xudii jiray amirul mu'miniin ali ibn abi talib radiyallahu anhu irtahalat ad-dunya muqbila
الدنيا دي وين ررتي وين دبتشيدس وارتحلت الآخرة مقبلة آخرنا ويسوق جورته ويصار ررتي وين سوتشي ستي ولكل منهما بنون الدنيا دون وضد بيلاده هاي آخرنا ضد بيلاده فكونوا من أبناء الآخرة ورصد الدنيا ده النقنين كوا آخرة كم من نقطة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ورصد الدنيا النقنين قف الدنيا ده أمنا إنه أيضا ضلعه وهبين إيا مالين بوحكو كرديو آخر موجنا النقطة هالنقنين ضد آخر النقطة أو آخر النقطة ابن القيم عليه رحمة الله وحديه شلا سونا ما مضى من الدنيا أحلام وحلا وحي الدنيا ده كرافي أو كاتجي وحي لمدين وحقروا عمله أحلام وي وما بقي منها أماني وحكون من أسوء سنة ووح نفط هذا الديل كاسي أمانينا سوء كنا شايفين حتى فيري وحي كرافي أو قصام مري حتى من الفريسة ومسكحة فيري مركع يري ماليه أتشوي شرتي يسيد الأحي يحالدي كل الدوانا سيدي وحقروا عمل أو قصام مري وحسوسا تهي وحين واحد ماضي وحصلنا قرينا معه وحكون لمن مركب في رصدنا وضمع عص يهودا كوجو جرتا يهديل كاعسوس السدوي لبدا ساقف كو دخيا والوقت بينهما ضائع وقتنا وحو كل مي وحي تغي كشيكينتودي حسوستودي iyo waxa soo socda hiddiilkoodii iyo mustaqbalkoodii sidoo qofku adduunyo ugu hormari lahaa halkaasana waqtigii ku dhamaado kulma الإمام حسن البصري وحده يا ابن آدم إنما أنت أيام ابن آدم وأديك أن ما مطاي مع الماء ياطا فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضه هذه مالين كأو تجو مالين كان أو كضعفه قبل كم إذا أديك لفتك على آيات تجي أوجو أديك لفتك على قريب كم إذا آيات تكتي للصعود هبين والبقبر بالوسي دواني إلهي سبحانه وتعالى أمبرنا إن بدن إلهي سبحانه وتعالى حقها هنا وسوا